Asalaamu calaykum daawadyaal kusoo dhawaada channelkeena True Love. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa wadamada ugu badan ee laga cabo sigaarka. Hoos u dhac weyn ku yimid tirada dadka caba sigaarka maalintii iyadoo 1 milyan ay hoos uga dhacday. Tirada dadka isticmaala sigaarka marka la isbarbar dhigo sanadihii 2019 iyo 2018. Hase yeeshee sidoo kale muddo 10 sano ah ayaa jirtay dadaalo lagu xadidayay cabida sigaarka ayay tirada dadka caba sigaarka ay kor u kacday sida daraasad lagu sameeyay sanadkii la soo dhaafay lagu sheegay. Iyadoo la xusay maalinta ka hortagga sigaarka cabida waa kuwan liiska wadamada ugu sigaarka cabida badan adduunka. Waxaa lambar kow ka ah jasiiradda Kiribati. Jasiiradda Kiribati ayaa ah dalka ugu sigaarka cabida badan adduunka. 3 jibaar ragga dalkaas ayaa sigaarka caba iyadoo dumarka ka badan 3 jibaar dumarka ku nool jasiiraddaas ay cabaan sigaarka. Dhinaca canshuurida sigaarka ayaa wadankaas aad khafiif u ah. Dadka ku nool jasiiraddan ayaa gaaraya 103 milyan oo qof. Sigaarka ayaana laga canshuurin si jasiiraddan taas oo u fududeysay dadka inay si sahlan ku heli karaan. Lambar 2 Montenegro wadankan oo ku yaala bariga Yurub ayay ku nool yihiin tirada dadka ugu badan ee Yurub caba sigaarka taas oo dhan 46%. Dadka ku nool dalkan ayaa gaaraya 633 milyan oo qof halka 4124 xabo oo sigaar ah ayuu qofkiiba cabaa sanadkii. Iyadoo laga mamnuucay inay dadka sigaarka ku cabaan goobaha ay dadka ugu yimaadaan ayay weli si xor ah ugu cabaan goobaha shaqada, makhaayadaha iyo xarumaha gaadiidka laga raaco. 50% ragga ku nool dalka Greece ayaa caba sigaarka. Greece oo ah wadanka saddexaad ayaa ugu sigaarka cabida badan adduunka. Kalabar dadka ku nool Greece ayaa caba sigaarka. 35% ka mid ah dumarka dalkaas ayaa caba sigaarka. Iyadoo la meel mariyay sharci lagu joojinayo sigaarka cabida 2008 ayaa waxaa weli jira dad badan oo sigaarka caba. Waxaa si sharci darro ah badanaa wadanka lagu soo geliyaa sigaarka. Lambar 4 Bariga Timor ayaa ka mid ah meelaha ugu sigaarka cabida badan dunida. 80% ragga ku nool dalkaas ayaa caba sigaarka taas oo noqonaysa tirada ragga ugu sigaarka cabka badan adduunka. Dumarka wadankaas ayaa 6% ay isticmaalaan sigaarka. Waxaa goobaha la isugu yimaado laga mamnuucay digniinana lagu shaaciyay looga hadlayo dhibaatada sigaarka balse kala bar dadka waaweyn ayaana akhrin karin qoraaladaasi. Lambar 5 wadanka Ruushka ayaa ah wadanka shanaad ee ugu sigaarka cabida badan adduunka. Ku dhawaad 60% ragga ku nool dalkaas ee ka weyn 15 sano ayaa caba sigaarka. 23% haweenka ku nool Ruushka ayaa sidoo kale caba sigaarka. Waxaa horey loo mamnuucay in sigaarka lagu cabo goobaha shaqada iyo xarumaha ay dadku ku kulmaan balse waxaa si weyn dalkaas looga xayisiyaa ka ganacsiga sigaarka taas oo ka qayb geysatay inay dadka si aad ah u cabaan. Suuqyada lagu iibiyo sigaarka ee ka jira Ruushka ayaa dakhli dhan lagu qiyaasaa inay kasoo galaan $22 milyan. Wadamada ugu sigaarka cabida yar ayaan mowduucayna dambe idigu soo gudbin doonaa. daawada haddaad ka mid ahayn dadka ku xiran channelkeena fadlan subscribe saar gambalaalkana taabo kana mid noqo dadka nagu xiran.